kulanti wanaagsan dawdiyaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya. qodobadan caawa barnaamijkeena ku soo qaadi doonana waxaa kamid ah Ra'iisul Wasaare Roble oo ka hortagaya go'aan dhabarjab weyn ku noqon kara madaxweyne Farmaajo iyo xog laga helay Ra'iisul Wasaare Roble oo shuruud adag ku xiray murashaxnimada Saciid Dani. haddaba maxaa ka jira in Ra'iisul Wasaare Roble uu ka soo horjeesan doono murashaxnimada madaxweynaha Puntland? xog culus ayaan idinkaga soo gudbin doonaa insha Allah. xogta kulan uu Ra'iisul Wasaare Roble la qaatay wakiilada beesha caalamka, Ra'iisul Wasaaraha oo beesha caalamka la wadaagay halka uu marsiinayo doorashooyinka Soomaaliya iyo taageero uu dalbaday ayaan sidoo kale wararkeena ku soo qaadan doonaa. qodobada kale ee wararkeena waxaa kamid ah wararkii ugu dambeeyay arrimaha doorashada dalkeena, gudiyada doorashada heer dowlad goboleed ee maamulada Galmudug iyo Koonfur Galbeed oo doortay gudoomiyayaal iyo shakhsi ay hore u diidanayeen siyaasiyiinta mucaaradka ah oo loo doortay gudoomiyaha guddiga doorashada ee maamulka Galmudug. xog lama filaan ahna waxaa laga helay wakiilka madaxweyne Farmaajo ugu magacaaban gobolka Gado oo gaaray gobolkaasi xilli halkaasi ay yaalaan kuraas ay isku hayaan madaxweyne Farmaajo iyo Axmed Madoobe. booliiska Soomaaliya oo mar kale dagaal adag la galay kooxo burcad ah oo dadka shacabka ku dhaca magaalada Muqdisho, iyo booliiska Soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyay howlgaladii ugu dambeeyay. qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah. waana habeen Isniina 5 bisha 7 ee Luulyo sanadka 2021. barnaamijkan wararka Soomaaliya waa mid aan ku soo gudbino dhammaan dhacdooyinka dalka. haddaba daawada ka qayb qaadada booliiska dalka inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara. waad ku mahadsantihiin inaad taasna la fahantaane fadlan nala faafiyo wararka oo gaarsiiyo saaxiibadeena idinka oo ku sheer gareynaya baraha bulshada. mahadsanidin. aynu ku bilowno wararkeena. waxaynu ka hormaraynaa wararkii ugu dambeeyay arrimaha siyaasadda ee dalkeena. warar aynu helnay ayaa waxay sheegayaan in madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani la gaarsiiyay fariin ku saabsan in uu iscasilo isla markaana uu warqadiisa istiqaalada ah soo gudbiyo haddii uu yahay murashax u taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya, isla markaana uu ka soo tanaasulo xilka uu ka hayo dowlad goboleedka Puntland. madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa lagu wargeliyay in uu iska casilo xilka uu u hayo dadka reer Puntland haddii uu yahay murashaxa Soomaaliya ama murashaxiinta ka qayb galaysa sanadkan doorashada dalka ka dhacaysa ee 2021, iyadoo arintaanina uu Ra'iisul Wasaare Roble gaarsiiyay shuruud adagna ku xiray murashaxnimadiisa Soomaaliya ee sanadkan. Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble wareedyo ku dhow ayaa waxay sheegayaan in uu Ra'iisul Wasaare Roble u sheegay Saciid Dani marka hore in uu wareejiyo mas'uuliyadda Puntland ee soo magacaabidda aqalka sare waa haddii ay dhab tahay in uu yahay murashax madaxweynaha Soomaaliya. ma jirayso sabab uu ku soo xulo xubnaha aqalka sare ee Saciid Dani haddii uu yahay murashax, waana in uu soo xulaa xubnaha aqalka sare madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo uusan wax kaalina ku yeelanin Saciid Dani senatarada aqalka sare ee ka imaan doona deegaanada Puntland. haddaba Saciid Dani ayaa ka howlan sidii uu uga gaabsan lahaa ku dhawaaqida murashaxnimada madaxweynaha ilaa iyo inta uu soo xulayo xildhibaanada labada gole ee Puntland, balse Ra'iisul Wasaare Roble oo hawsha doorashada gardaadinaya ayaa ku adkeysanaya in laga joojin doono murashaxnimada Saciid Dani haddii uusan cadeyn hadda inuu yahay murashax, waana sharci in uu wareejiyo mas'uuliyadda soo xulidda aqalka sare maadaama uu yahay murashax ka mid ah murashaxiinta sanadkan u tartamaya xilka madaxweynaha ee Soomaaliya. waxa uu tartan adag markaasi la galaya murashaxiinta kale ee dalka ka jira iyagu murashaxnimadooda hore markaas u shaaciyay. arrintan waxa ay dhabarjab weyn ku noqon lahayd madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo haddii Saciid Dani uu gacanta ku dhigo xildhibaanada labada gole ee Puntland ka imaanaya, sidoo kalena uu isku soo sharaxo xilka madaxweynaha ee Soomaaliya ee sanadkan 2021, balse Ra'iisul Wasaare ayaa arrinkaasi dhexda u galay. waa haga qaybaha hore ee wararka warqad TV ayaa la socotaan. magaalada Muqdisho gaar ahaan teenada Fisiooni waxaa maanta kulan ku yeeshay Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya iyo xubno ka socday wakiilada beesha caalamka. Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya waxa uu kulankan la qaatay safiiro iyo waliba sidoo kale diblomaasiyiin ka socotay beesha caalamka, isaga oo kala hadlay arrimo ku saabsan doorashooyinka dalka iyo jadwaladii ay soo saareen golaha wadatashiga qaran. Ra'iisul Wasaare Roble beesha caalamka waxa uu isagu weydiistay taageero dhaqaale, isagoo ka dalbaday inay taageeraan isla markaana lacag fara badan ay ku bixiyaan dhaqaalaha doorashada qaybta beesha caalamka laga sugayana inay markaasi soo dadajiyaan
si waqtiga doorashada loogu heshiiyey aysan mar kale dib ugu dhicin oo doorashada waqtigeeda ay ugu qabsoonto kalkan. ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa sidoo kale waxa uu beesha caalamka ka dalbaday in ay ka qayb qaataan sidii ay dalka uga dhici lahayd doorasho loo dhan yahay oo ay u siman yihiin dhammaan saamileyda siyaasadda ee dalka ka jirta. waxa uuna dhanka kale kaga warbixiyey arrimihii ugu dambeeyey ee doorashada dalka iyo halka uu waxmarsiinayo. kulanka ayaa la isku afgartay in beesha caalamka ay qaadato doorkooda ku aadan taageerada dhaqaale iyo farsamo ee looga baahan yahay si loo gudagalo qabashada doorashada Soomaaliya ee sanadkan. guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa shalay waxa ay doorteen gudoomiye iyo ku-xigeenkiisa waxaana si habsami leh uga soconaya guud ahaan dalka arrimaha doorashooyinka. heshiiskii muqdisho lagu gaaray ayaa waxa uu dhigayay in doorashada dalka la dedejiyo iyadoo sidoo kale jadwalkii ay soo saareen 29 bishan waa bishii tagtay ee June raaxde madaxda golaha wadatashiga qaran ay ku heshiiyeen in 10 Oktoobar la qabto doorashada guud ee wadanka oo madaxweynaha markaasi uu noqdo kan ugu dambeeya ee la doorto 10 Oktoobar. isla arrimaha doorashooyinka ayaynu ku guda jirnaa. maanta magaalada muqdisho waxaa kulan ku yeeshay guddiga doorashooyinka koonfur galbeed iyo galmudug iyaga oo doortay gudoomiyayaal. xubnaha guddiga ayaa waxaa gudoomiyaha koonfur galbeed ay u doorteen yuusuf cabdiqaadir maxamed baafo oo isagu helay codad gaaraya ilaa 10 cod halka ninkii la tartamayay uu helay 1 cod oo keliya. dhinaca kale gudoomiye ku-xigeenka ayaa loo doortay nuurudiin ibraahim aadan oo isaguna helay 9 cod halka shaqsigii kale ee la tartamayay cabdulaahi cabdi uu helay isaguna 2 cod. doorashadii kale ee maamulka galmudug oo ahayd mid aad u xiiso badan ayaa waxa ay u dhacday sida tan. xilka gudoomiyaha ayaa waxaa markaasi loo doortay ninka la yiraahdo maxamed daahir guuleed oo isagu helay ilaa 11 cod isaga oo helay amaba murashax kale oo la tartamay aysan jirin. waxaana sidoo kale xubnaha guddiga ay saacid aadan jaamac u doorteen gudoomiye ku-xigeenka oo isaguna helay 11 cod mana jirin tartan kale oo dhex maray. haddaba shaqsigan loo doortay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee dowlad goboleedka galmudug ayaa waxa uu yahay shaqsi hore ay cabasho uga muujiyeen siyaasiyiinta mucaaradka si gaar ah hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo isagu eedeen kulol u jeedinayay gudoomiyahaas inkastoo haatan mar kale dib loo doortay. lamana oga sida siyaasiyiinta mucaaradka ah ay arrinkan kaga falcelin doonaan. waa hagaag barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya ayaad la socotaan warqad TV ayaad naga daawanaysaan. iminkana wararka laga helayo gobolka Gedo ayaa waxa ay ku waramayaan in ninka ugu magacaaban madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo gobolka Gedo uu gaaray halkaasi koor inta aysan halkaasi gaarin wafdiga maamul goboleedyada ee dib u heshiisiinta. Cabdulaahi Aadan Kulane ninka la yiraahdo oo kamid ah madaxda hay'adda NISA ayaa waxa uu safar qarsoodi ah ku tagay degmada Luuq isagoo wata ilaalo xoog leh oo magaalada Muqdisho uu ka watay. qorshaha uu Cabdulaahi Kulane ku tagay gobolka Gedo ayaa ku saabsan sidii ay saameyn ugu yeelan lahaayeen maamulka loo sameynayo magaalada Garbaharey oo ay hadda ka socoto olole ku saabsan soo xulista xubnaha loo sharaxayo gudoomiyenimada magaalada ay doorashadu ka dhacayso ee Garbaharey. warar kale oo la helay ayaa waxay sheegayaan in sidoo kale ay gobolka gaareen taliyaha NISA ee gobolka Gedo Cabdiraxmaan Cabdulaahi iyo Bakaal Kooke oo ah taliyaha ciidamada xasilinta ee gobolka Gedo oo dhawaan Ethiopia ka soo laabtay. madaxtooyada Soomaaliya ayaa la sheegay inay wadato 2 murashax oo kamid ah liiska murashaxiinta u tartamaya gudoomiyaha Garbaharey waxaana labadan murashax soo qortay madaxweyne Farmaajo iyadoo odayaasha magaalada laga doonayo in ay markaasi gudbiyaan. madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa doonaya inuu saameyn ku yeesho xildhibaanada beeshiisa ee lagu dooranayo magaalada Garbaharey waxaana gobolka Gedo si toosa u maamulaya Cabdulaahi Kulane oo Farmaajo u qaabilsan. halkaas waxa yaalo kuraas ay si aad ugu tartamayaan madaxweyne Farmaajo iyo waliba sidoo kale hogaamiyaha maamulka Jubbaland ee Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waana doorashada ugu adag ama waxa ay kamid tahay doorashooyinka ugu adag ee halkaasi ka qabsoomaya. ugu dambeyntiina booliiska gobolka Banaadir iyo booliiska guud ee Soomaaliya ayaa waxa ay fafaahin ka bixiyeen howlgallo mar kale ay ka fuliyeen magaalada Muqdisho kuwaas ay ku soo qabteen dad burcad ah. waxay sheegeen in howlgalladan lagu soo qabtay tuugo dadka ka dhici jiray telefoonada iyo agabyada kale iyaga oo sheegay in howlgallada ay noqon doonaan kuwo sii socda. maalmihii ugu dambeeyay booliiska Soomaaliya ayaa kordhiyay howlgallada ka dhanka ah kooxaha burcadda ah ee dadka ka dhacaya telefoonada iyaga oo sheegaya in la maxkamadeyn doono hadda kadib dadka lagu soo qabto falalka caynkani oo kala
shacabka ku dhaqan magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa dhowr jeer cabasho ka muujiyey dad markaasi ka dhacaya taleefanada oo xitaa gaartay in ay dukaamada markaasi dhacaan. qodobkaasi ayaa ugu dambeeyey warkaana. tan iyo warkaan war la mid ah intaynu dib ugu kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.